بسم الله الرحمن الرحيم waxaan la joognaa hadda teamkii leedka awaar gelinay leedkii 4 saacaha xaqiiqatan qorshihi aan wadnay hindisihi ahaa in awaar corridor samayno awaar corridor waxa weeyaan inaanu xarun ganacsi oo dry port awaar mustaqbalka laga dhiso waxay isku xidhi doontaa awaar dekada garacad ee ka imanaysa Puntland oo ay soo marayso galadi iyo wardheer doolo soo marayso ka imanaysa iyo waxa isku xidhi doontaa wadada berbere Hargeysa in guuxa oo customku isna noqon doono insha Allah halkaasi halkani waa meel junction point ah oo isugu yimaadaan labada wado meesha isugu yimaadaan wadadan waxa la dhahaa xaggan ku cadaha Ratris baa la dhahaa degmooyin badan ay si martaa gobolka doolo ay si dhex martaa halkana waxay si martaa sidoo kale degmooyin daroor ay si martaa xagga dhinaca iyo caalana iyadana sidoo kale ka faa'iideysanaysa marka waxaanu qiyaas sarfi aan daraasad aan wadnay sidii ay awaar goob ganacsi oo awaar corridor ah oo sameyn insha Allah dawladda oo laba meel isku xidha marka waxaan hadda la kulanay oo socda teamkii leedka gelinay 4 saacaha ስራ 20 ኪሎ ሜትር ተቆፍሯል ቁፋሮ እና አሁን ሰርቬይንግ እየሄደ ነው ወደ አዋሬ ነው ስራው የሚሰራው tan waxay ku tusinaysaa horumarka xawliga ee deegaanka ku talaabsaday halka uu u socdo isbedelka ku yimid deegaanka ma jirin awaare leed 4 saac oo gala ayo cala hadda laga soo qaadayo cala 4 saac ku yahay almost say noo sheegan ilaa 20 kilometer waa la qoday gudadkii 20 kilometer baa la qoday እንቅፋት የለም እንቅፋት ምንም የለም ሰላም 20 kilometer inta hadana haday wadaan way qodayaan markay qodaalka la dhameeyana tiirashi baa la gelin doonaa leedka awaara markay hesho leedka 4 saac dhamaan qorshayaasha aan leenahay oo dhan inay fuli doonaan insha Allah boqolkiiba boqol ku rajaynahay ይተባበራል ያዋሬ ጉዶሚዮም ሁሉም ይተባበራሉ የመጡ ይጠይቁናል በጣም ትብብራል ይተባበራል hormar fiican awaar ay gaar doontaa dawladda isbedel badan iyo nolol badan oo ganacsiga halkaas ay ka dhalan doonto aad baa masantiin አዎ ይመጣል ብዙ ለውጥ አለ 24 ሰዓት ነው የሚበራው ማብራቱ እና ብዙ ለውጥ ይኖራል ብዬ አስባለሁ በጣም እድገት ይኖራል ማብራት ሲኖር 24 ሰዓት ይበራል ብዙ ነገር ይጠቀማሉ